kuwani waa dilaaga taxanaha ah ee ugu caansan taariikhda. waxay caan ku yihiin dilka qof walba oo ay doonaan bilaa sabab. ma jirto sabab cad oo ay u laayaan dadka. waxaan oran karnaa waa balwadooda dilku. qaar kamid ah dilayaasha geysta dilalka taxanaha kuwooda ugu caansan ayaynu barnaamijkeenani kala faalan doonaa. daawada soo dhawow haddii aad page-keena naga daawanayso like garee, sidoo kale haddii aad YouTube-ka naga daawanayso subscribe saar. ku soo dhawow barnaamijkeena. mid kamid ah dilaaga taxanaha ee taariikhda dilaaga wuxuu ahaa nin reerle oo xaasley ah, isla markaana takhaasuskiisu ahaa dhakhtar, kaasi oo ku guuleystay inuu fuliyo in ka badan 250 kiis oo dil ah isagoo u shaqeynayay dhakhtar caan oo Ingiriis ah. Harold Shuman wuxuu bilaabay dilkiisii koobaad 1972 waxaana la rumaysan yahay inuu dilay ugu yaraan 17 bukaan isagoo ka shaqeynayay goobtiisii ugu horeysay ee shaqo oo ahayd meel dhakhtar ah. wuxuuna laba jibaaray tiradaasi tababar labaad oo uu ku biiray kadib markii uu madax u noqday asxaabtiisa oo uu arkay inuu yahay nin mas'uul ah, xishood iyo kalsooni badan. ugu dambeyntiina 1998 mid kamid ah howlwadeenada deegaanka iyo dhakhtar kaleba waxay ogaadeen tirada aadka u badan ee shahaadooyinka meydadka ee Shuman uu saxeexay. waxay sidoo kale ogaadeen bukaanada dhawaan dhintay ee isaga sababsaday. badidoodu waxay ahaayeen haween waayeel ah oo la helay iyagoo fadhiyo oo dhar buuxa qaba oo aan sariirta ku xidhnayn sida caadiga ah, xaalad daranna ku jirna haddana meyd ah. qaabka uu dilay lama garan karo, waayo uguma talagelin inuu reebo raadilkiisa lagu aqoonsan karo. inkasta oo tilmaamahan baaritaanka bilowga ahaa si fudud loo maareeyay, waxay u ogolaadeen Shuman inuu sii wado dilalkiisa qarsoon ee sabab la'aanta iyo caddeyn la'aanta ah. dilaaga labaad ee aynu barnaamijkeena kusoo qaadanayno waa haweeneydii loogu magac daray Lady Bluebeard. Lady Bluebeard ayaa u haajirtay Mareykanka kana timid Norway sanadkii 1981. waxaanay degtay Chicago halkaasoo ay ku guursatay nin kale oo Soomaali ah oo reer Norway ah. ninkaasi waxay isku dhaleen 4 caruur ah, 2 kamid ah waxay dhinteen iyagoo yar. qoyskan ayaa waxay lahaayeen bakhaar nacnac markii ay ahayd 1900. dukaankaasi si qarsoodi ah ayuu u gubtay, ninkiina wuu dhintay. inkastoo ay labadoodaba ku dhaceen duruufo shaki leh, Janice waxay awood u yeelatay inay ururiso lacag badan oo ay ka soo qaadatay shirkadaha caymiska bixiya, taasi oo u ogolaanaysay inay iibsato beer ku taala beerta Indiana. Janice waxay ku andacoonaysaa inuu u dhintay si caadi ah. inkastoo baaritaan la sameeyay, wax caddayn ah oo ku saabsan shakiga laga qabo dilkooda laguma soo saarin, taasi oo horseeday bixinta caymis kale oo culus. kadib waxay bilowday inay dhigto xayeysiisyada wargeysyada iyadoo raadinaysa nin saddexaad, iyadoo shuruud looga dhigayo kuwa doonaya inay soo booqdaan beerteeda Indiana. dhowr qof oo raba inay soo jiitaan ayaa sameeyay safarka, dhammaantoodna waa la waayay. mid qura ayaabaa nolol kaga soo baxay beerta. cidna si dhab ah uguma oga inta qof ee ay Janice dishay, laakiin waxay u muuqataa inay iyadu la kulantay dhammaad qiiro leh. bishii Febraayo 1908 dab ayaa baabi'iyay beerteedii. burburka waxaa kamid ahaa meydadka Janice, caruurteedii 3 nooleed iyo meydka haweeney madaxa ka go'an. inkastoo ay mas'uuliyiintu ku tilmaameen haraaga inay tahay Janice, haddana shakigu si dhaqso ah ayuu u faafay maadaama uu jirku aad uga yaraa kan dheer ee culus ee ay Janice lahayd. Janice oo ahayd qof jir ahaan aad u xoogan, baadagoob loogu jiro madaxeeda oo maqan oo aan weligii soo bixin lana helin ayaa horseeday helitaanka argagaxa lahaa ee ku dhawaad darsin meyd ah oo ay ku jiraan kuwa la raadinayay ee maqan iyo dhowr caruur ah. gacanyaraheedii hore ay shaqada ka caydhisay dhowr sano ka hor, markii dambana ay sheegtay inay nafteeda u hanjabayso, ayaa la qabtay oo looga shakiyay dambiyadii. laakiin waxa kaliya oo lagu xukumay dabkaasi qabsaday beerteeda. qadarka dhabta ah ee beella weli lama yaqaan, inkastoo indhayn aan la xaqiijin ay sii socotay 10 sano dhimashadeedii kadib. laakiin ilaa hadda lama yaqaan tirada rasmiga ah ee iyada gacanteeda ku baxay iyo cidda ka dambeysay iyada dilkeeda.